dowladda Itoobiya ayaa cadaysay mowqifkeeda ku aadan xasuuqii ka dhacay Dacawaley iyo dagaalada ku socda Somaliland. Isafgaradkii iyo heshiiskii aqoonsi waxa ay ka yeelayso iyadoo ay fashilmeen guud ahaan qorshayaashii lagu kala fogeynayay Hargeysa iyo Addis Ababa. waxaana hadda wixii ka dambaysa si toos ah isula jaan qaadaya xukuumadda cusub iyo xukuumadda waddanka Itoobiya. kulamo hoose oo ay yeesheen wasiirada arrimaha dibadda iyo gaashaandhigga iyo safiirka u fadhiya waddanka Itoobiya ayaa la qariyay dhammaan xogihii lagaga hadlay kuwaasi oo ahaa kuwa diblomaasiyadeed, amni iyo sidoo kale qorshayaasha ay leeyihiin Addis Ababa iyo Hargeysa ee ku wajahayaan xaaladda geeska. ilowaleedyada diblomaasiyadeed ee loo soo dusiyay warbaahinta xooggan ayaa sheegaya in 3 qodob lagaga wada hadlay, waxaana aynu ku falaqayn doonaa warbixinteena. wasiirada gaashaandhigga iyo arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa kulan la qaatay safiirka u fadhiya Somaliland waddanka Itoobiya. kulankani ayaa waxa lagaga wada hadlay xaaladaha diblomaasiyadeed, amni, nabadgelyo ee ku xeeran labada waddan iyo cilaaqaadka dheer ee u dhaxeeya, kaasi oo soo jireenay Itoobiya iyo Somaliland aanay ku kala maarmin, iyadoo uu jiray heshiis safgarad oo muddadii ugu dambeysay sanadka ahayd taagnaa, kaasi oo isagana horumarintiisa loo madlan yahay inay xukuumaddan cusub ee haatan Somaliland taladeeda la wareegtay si aan baqaato. madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaana ballan qaaday inuu ilaalin doono adkayna doono cilaaqaadka u dhaxeeya Somaliland iyo Itoobiya oo ah mid si weyn isugu tiirsan. labarkoowna kulamadan ayaa waxa looga wada hadlay walaadii ka dhacday Dacawaley iyo halkaas oo ay ciidanka Liyu boolisku ku xasuuqeen dad isir ahaan Somaliland ka soo jeeda hase yeeshee ka tirsan waddanka Itoobiya, kuwaasi oo ilaa iyo haatan ay taagan tahay xaaladoodu. ilowaleedyo kalena ay sheegayaan ciidamada Liyu inay weerari doonaan magaalooyin kale kuwaasi oo ka tirsan isla dawlad deegaanka Soomaalida ee waddanka Itoobiya. safiirka ayaa sheegay deegaamada qalalaasuhu ka jiro oo dhan in ay ciidamada federaalku ku sugnaan doonaan oo ay mamnuuc gabi ahaanba ka yihiin ciidamada Liyu booliska, kuwaasi oo si gaar ah u ugaarsanaya dadka hayb ahaan ka soo jeeda deegaamada Somaliland ee beesha dhexe. tani ayaa ah mid ay Somaliland ku soo afjarayso duulaankii Dacawaley, sida oo kale looga xisaabtamayo dadkii tirada badnaa ee halkaasi lagu xasuuqay. qodobka labaad ee ay wada gorfeeyeen diblomaasiyiintu ayaa ahaa in heshiiskii safgarada Somaliland iyo Itoobiya uu diyaar ka yahay labada dhinac, sida oo kalena loo baahan yahay in haatan qalinka lagu duugo. heshiiskan safgarada oo micno weyn u sameynaya Hargeysa iyo Addis Ababa ayaana haatan la filayaa inay xukuumadda cusub halkaas ka sii ambaqaadi doonto, iyadoo Somaliland ahmiyad weyn u leeyahay oo ay ku kasbanayso aqoonsi caalami ah oo ay 33 sanadood ee ugu dambeysay doonaysay. kaasina isfaham ayuu ku soo dhammaaday sida ilowaleedyadu xogogaal u xaqiijiyeen diblomaasiyadeed. qodobka saddexaad ee ay ka wada hadleen wasiirka gaashaandhigga ayaa ahaa iskaashiga dhinaca militariga iyo colaadaha galbeedka iyo barigaba ka furan, kuwaasi oo dowladda Itoobiya ay dhinaceeda si weyn uga shaqaynayso xasiloonida iyo inay si nabadgelyo ah u noolaadaan labada shacab ee Itoobiya iyo Somaliland, sida oo kalena ay ka qayb qaadanayso wixii tallaabooyin diblomaasiyadeed ah ee lagu taageeri karo jamhuuriyadda Somaliland. waxa kale oo ku lifaaqnaa qorshayaasha ay ka wada hadleen wasiirka gaashaandhigga ee Somaliland iyo safiirka waddanka Itoobiya ciidamo tiro badan oo ay Itoobiya tababarayso, kuwaasi oo la filayo dhawaan inuu soo xidhmo laylisku. isxog waraysi iyo isbarasho ayaa uu kulankani weji kale ka ahaa, kaasi oo xukuumadda cusub iyo safaaradda waddanka Itoobiya ee Hargeysa ay ku wada jaan qaadayaan. qodobadan lagaga wada hadlay kulamada aan la faafin marka laga reebo sawirro ayaa guul weyn u ah Addis Ababa iyo Hargeysa, iyadoo si ambaqaadka heshiiskan ay si weyn uga dirirayaan wadamada Djibouti iyo Soomaaliya.